السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بس سلام كدي waxaad ku soo dhawaataan channelkani Ilka Case TV oo aad kala socoteen barnaamijyo ama qisooyin jacayl ah. Waxaan idila wadaagi doonaa sheekooyin yar oo kooban. Sheekadu waxay ku bilaabmaysaa sida tan. Nin reer miya ayaa bari magaalo tagay. Markuu magaaladii soo galay ayuu meel walba maray. ninku wax akhriska ayuu jajabsan jiray. markaasuu dhowrkii cisho ee ugu horeeyay wixii ka soo horbaxaba akhri jiray. waxyaabaha ugu badan ee indhihiisu qabteen waxaa ka mid ahaa baabuurta yaryar ee tagaasida oo lagu wada qoray taxi. kadib maalin ayuu meherad lagu kaftamayo soo galay. kadibna waa uu iska fadhiistay. markaa dadka goobta iskugu yimid qaarkood baa isku haystay hebel baa ugu taajirsan iyo maye hebel baa ka hanti badan. ninkii baadiyaha ka yimid ayaa intuu sheekadii ku soo dhacay ayuu yidhi war ninka taxi la yidhaahdo baa ugu taajirsan baan filayaan anigu oo baabuurta magaalada oo dhanba isaga ayaa iska leh. beri waxa uu xaaskiisa uga soo dacwooday isagoo jooga waddanka Mareykanka in loo keeno xaaskiisa lana noolaato. hase ahaatee waa loo ogolaaday waana loo geeyey si yaro fudud. kadib markii loo geeyey xaaskiisa ama ay wada kulmeen ayaa waxay jeclaysteen in uu meelaha jawiyada quruxda badan leh amaba dadku isjecel ay ku soo raaxaystaan waqtigoodana ay ku soo qaataan inuu geeyo. hase ahaatee waxaa markasta gabadha dhigeeda kusoo dhacaya dad ka hor imanaya ninka oo dadkaas oo ku leh hi isaguna uu ku leeyahay hi waayna la yaabtay kelmadan hi micnaheedana ma garanayso. hase ahaatee waxay xaaskiisa gurigii tageen waxay ka codsatay inuu u sheego macnaha kelmadan hi wuxuuna ugu jawaabay kelmadda hi macnaheedu waa salaan gaaban amaba salaantoo kooban. haddaba waxay xilligii salaada waa ay tagtay waana ay soo weysaysatay waxaana u soo diyaargarooday inay tukato. markii ay salaadii tukatay ee gaadhay salaamad naqsigii ayay tiri dhinaceedii midig taagtay ay waxa u tiri hi markaasay haddana dhinacii bidix taagtay ay tiri haddana hi. Aku barashadii yahay